halkan oo ah agagaarka isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho abaarasidiisa waxa meesha waxa ka dhacay qarax la sheegay oo ah miinada dhulka laga hawo goobjoog ayaa sheegay in qarax la eegtay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay inuu soo gaaray dhaawac aad u culus wararka ayaa ku daraya in dhimashada goobta ka dhacday ay tahay 7 qofood oo isugu jira ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba dad shacab mid kamid ah goobjoogayaasha ku sugan halkan waxay wax ka dhacayeen oo la hadlay goobjoog ayaa sidaan yiri والله أنا waxaan goobjoog u ahaa oo anigu kulay shakhsiyan arkay saddex hay oo dhimatay iyo askarto afara iyo saddex dhaawac abaar xiliga ku adeered والله waxay ku adeered 2 saac oo 10 daqiiqo dhimatay marka dadku waa damaadaya qofku ma ogtaa markuu argagax dhaco qarax dhaco qofku ma ogtahay wararka oo maartay oo meesha waa marka maqaadiir dhacday wixii qaadi karna waa qaadna baawur saarna wixii kale na Allah u naxariisto dhaawac ilaa muuqaal arag in waxa arkay cunug caseeya iyo yar gurigaas isinaayay oo qorantahay maarta qaro harqaanka oo yara laba wiil oo afar qof ah ogaalkada yaa la beegsaday wallahi su'aashaas waa su'aalo aad dadka dhaxaysa maraa laakiin waa dareemi karaa qofka la beegsanayo aniga hadda kuma oran karo qof hebel يا مجا حبل يا شخص حبل يا مريم والله قاري أمراي لكن قاري قاس وأدريم كرتابو أنا هذا تفاصيله كم هي ولقى في عين marka halkan soo gaarnay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta wali oo cad ayaan kala kulannay iswarsaag shaqo warbaahinta inta badan waxay wajahaan xiliyada ay halkan xaqiiqada u soo raadiyaan iswarsaag shaqo ay ku sameeyaan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya Maxamed Rooraye warbaahinta goobjoog Muqdisho Bimalo Center moolka Bimalo bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalo Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimalo baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimalo Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalo Center moolka Bimalo waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaalumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalo Center xarunta ganacsiga ee Bimalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimalo